Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay telefoonka casriga ee Tesla Pi. Haddaba shirkadda caanka ee Tesla ayaa ka shaqeynaysa soo saaridda telefoonka casriga ee Tesla Pi. Tesla waa magac shirkad weyn ee uu leeyahay Elon Musk ee ku taala California, USA. Sida qaar badan oo idinka mid ahi ay garanayaan ama ay hore u maqleen, waxay hore u soo saartay baabuurta ku shaqeysa korontada. Elon Musk waa ninka iska leh shirkado fara badan oo ay ka mid tahay SpaceX, taasoo soo saarta dayax-gacmeedyada iyo gantaalada kala duwan ee xambaara dayax-gacmeedyada. Waxay dad badani aaminsan yihiin in telefoonka Tesla Pi uu noqon doono casriga jiilka xiga. Elon Musk ayaa ku dhawaaqay inuu soo saarayo telefoonka casriga ee Tesla Pi, kaas oo ugu magac daray shirkadiisa soo saarta baabuurta ee Tesla, wuxuuna telefoonkaas u bixiyey Tesla Pi. Haddaba shirkadda Tesla ayaa qorsheynaysa inay sii daayaan wax soo saarkooda xiga. Waxaadna la yaabi doontaa inaad wax ka barato Tesla Pi iyo awoodihiisa. Telefoonkan Tesla wuxuu awood u leeyahay soo dejinta xogtaada nooc kasta oo ay tahay, kaas oo ku soo dejinaya 110 megabytes per second, wuxuuna ku shaqeynayaa nidaamka internetka ee 5G. Sidoo kale wuxuu toos ugu xidhmayaa dayax-gacmeedka Starlink. Starlink waa hab kuu oggolaanaya inaad hesho internet meel kasta oo aad adduunka joogto, xitaa Mars. Haddaba telefoonkan cusub wuxuu soo bandhigi doonaa dhowr astaamood oo horumarsan. Waxa kale oo si weyn looga heli doonaa suuqyada caalamka. Guud ahaan Tesla Pi wuxuu yeelan doonaa nidaam heer sare ah. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii aad isticmaasho telefoonkan, uu kugu shaqeyn doono kaynta, buuraha iyo xitaa Mars haddii aad tagto. Sababta keliya ee tani waa in telefoonkan casriga ahi uu awood u yeelan doono inuu helo signaalada satellite-ka, kaas oo toos ugu xidhmaya xarumaha SpaceX. Daahfurka moobilkan cusub ayaa la filayaa in suuqyada caalamka ka tirtiri doono telefoonada kale ay soo saaraan shirkadaha Samsung, Apple iyo Huawei, kuwaas oo soo saara telefoonada casriga ah ee gacanta. Haddaba telefoonkan casriga storage-kiisa ama maskaxdiisu waa 2 TB oo u dhiganta 2000 GB. waa adiguun hadaalin saad wax ugu shubaysid. Sidoo kale Elon Musk waxa uu qorsheynayaa nidaam lacageed oo uu leeyahay Tesla Pi, waxaana la dhahaa Marsicon. waxaadna ka maarmi doontaa walletkaaga. Ma cadda in telefoonka Tesla Pi aad ku isticmaali karto simkaarada ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta, waana suurtagal inaan u baahnaan doonin simcard mustaqbalka si uu u shaqeeyo. Telefoonkan waxa uu leeyahay 4 kaamiradood oo dambe iyo hal hore, taas oo ku taala qaybta hoose ee telefoonka, kuwaas oo noqon doona kuwa ugu casrisan ee uu telefoon gacan lahaa. Kaamirooyinka dambe adigoo muuqaal ku duubaya ayaad kaamirada horena sawir selfie ah ku geli kartaa. Cajaa'ibta kale ee uu leeyahay telefoonkan ayaa ah inuu isbedbedelayo midabkiisa marka uu ku dhaco iftiin ama ilayska cadceedda. Waxa kale oo uu leeyahay telefoonkani solar panel, micnaheedu waxaa telefoonkan toos uga dabaysan kartaa ilayska cadceedda. waa qorrax raadso saad telefoonkan u heshid chargerkiisa. Haddaba haddaad haysato alaabo kale ay soo saartay shirkadda Tesla sida baabuurta, waxaad toos uga maamuli kartaa telefoonka gacanta ee Tesla. Shirkadda Tesla ayaa horey u qabsatay nashqadihii hore ee shirkadda Apple ee Antonio De Rosa, kaas oo Elon Musk u doortay nashqadeynta Tesla Pi. Xifaaltanka u dhexeeya Tesla iyo shirkadda Apple waxa ay u badan tahay inuu sare u kaco maalmaha soo socda. Halkaa marka ay marayso, waa laga maarmaan in la xasuusto in shirkadda Apple ay horey u diiday inay iibsato Tesla maalintii ay Tesla soo food saartay maalmihii madoobaa. Tesla waxaa ka dhammaatay lacagtii caddaanka ahayd markii ay soo saartay gawaarida Model 3 ee korontada ku shaqeeya. Elon Musk waxa uu sheegay in maamulaha Apple ee Tim Cook uu diiday inuu la kulmo isaga, oo markii dambe sheegay inuusan ka warqabin kulankaasi. Tesla Model Pi waxa uu noqon doonaa iPhone-ka mustaqbalka. Musk waxay u badan tahay inuu ku jiro hami argoosi ah, isagoo ku howlan soo saaridda telefoonada gacanta ee Tesla Pi-na waa wadkii dili lahaa iPhone-ka maanta. Loolanka u dhexeeya Apple iyo Tesla waxa uu muuqdaa mid aad u xiiso badan, halka Apple ay iyaduna qorsheynayso inay soo saaraan baabuur ku shaqeysa korontada oo iyagu iswada. Khilaafka u dhexeeya labadan shirkadood waxa uu noqon doonaa filim bilaash ah oo cid kasta oo tiknoolajiyadda xiiseyso ay danaynayso inay daawadaan. Si tartankani dhab u noqdo, shirkadda Apple waa inay sahmiso Phoenix, maadaama shirkadda Tesla ay horey u sahmisay Mars.